ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka oo guushii ay deegaanka iyo dalka u soo hooyeen kadib ka soo laabtay howlgalkii huluulo una sii jeeda aag kale oo xuduudda ah oo ku nastay magaalada Goday ayaa harma sharafeed loogu sameeyay gudaha magaaladaasi. haddaba shacabka qaybihiisa kala duwan ganacsatada iyo maamulka gobolka Shabeelle kan degmada iyo maamulka magaalada Goday oo aan u kala hadhin ayaa soo dhaweyn diiran ku qaabilay xoogga ciidanka gaarka ah ee deegaanka shacabka oo niyadda ku haya guushii lama ilaawaanka ahayd iyo casharkii markaasi loo dhigay al-shabaab. intaasi kadib ciidankii liminta lama ilaawaanka ka sooyay aaga huluulo oo la hadlay warbaahinta qadashrafeedkaasi kadib ayaa yiri dhiirigelinta shacabkaygu way nala garab taagan yihiin waxay noo tahay saad iyo sahayaan dhamaanin. runaantii markii hore waxaan mahad celinayaa shacabka dawlad deegaanka guud ahaan anigoo aan kala reebaynin hiil iyo hooda ay nala garab taagan yihiin. geesta kale haddaan macnihii ku socda dhanka kale hawlgalkii socday 4 cisho wuxuu ku soo dhamaaday sidii loogu talagalay. cid kastoo macnihii deegaanka ku soo xadgudubtana tusaale ayay tahay waayo anaga deegaankeenu waa deegaan nabada shacab nabada jecel ka shaqeeya horumarda cid kastoo daandaansi iyo la soo gasha qalalaasana shacabku inay iska soo dhex qabtaan ayaga macnihii mar walba ay ka go'an tahay. marka anaguna waanu ku faraxsanahay maadaama anagu shacabka habeen iyo maalin u taaganahay sida ay noo garab taagan yihiin ay ka go'naanshaha leh. marka cid kasta oo macnihii isku soo dayda kan khalaas ka aburto cashirkii tusaale baan bixinayna toddobaadkii ugu dambeysay baa tusaale ah. marka waxaan u maleynayaa cid kasta inay ku soo degdeg doonaan hadda deegaankeena agrid rool bay ka qaateen kaalin mugla ayay ka qaateen shacabka ayaa jecelahay waxa weeyaan dhaxanta iyo waxa weeyaan roobka ama qorraxda aan u taaganahay waxaana moraal geliyay shacabkayga 24 saac aan seexanin ee biyaha nala garab socda xogta nala garab socda aad iyo aad u mahadsan shacabkayga waa shacabka go'naashale waa anagoo isku tiirsan oo mida ayaan cadawgina meel saaray shacabkii iyo macnaheedu dawladda iyo ciidankii hay'adaha amniga oo meel wada socda ayaa meel saaray cidii argixisada terrorismka ahayd ee ku soo xadgudubtay deegaanka iyo Itoobiya kuwaas oo rabay inay ka abuuraan amni darro dhammaan deegaanada Itoobiya. qabanihii soo galay maxay hulul ama malabley waan soo afjarray dhammaantood shalay majarrasa wax ma taqana hare ma jiro wax baaqi ma jiro midkoogii halkii buu waran yahay. taasaan ku sii dhiiranahay shacabkanaga iyo deegaankanaga ina ma taqaanay aanu habeen maalba soo jeedno waan ku socon doonaa meel kasto al-shabaab lagu sheego ama cadow kasto oo soo gala deegaankanaga inaan talaabo sharci ka qaadano oo aan dhaqaaq dambe ayna soo gelin deegaanka. kullay dadkana shacabka ee deegaanka ku nool aad bay fiican aad bay loo dhiirigeliyeen waa dad wanaagsan oo heel iyo hooda nala garab taagan oo meel kasto joog nala taagan. hadday dhaawac noqoto haddii wax walba ma taqaana ciidanka qaadaya shacabkoodu aad iyo aad buu fiican yahay. meel kastoo joogna way nala taagan yihiin iyagiiba difaaca ku jira annagiiba ku jira al-shabaab aandi baan ka nama taqaanaa hal meel baan ka walanahay shacabkana iyo ciidanba waan wada dhaaqnay waan ma taqaana soo jarnaan wax ma taqaana deegaanka ma taqaana ku sii dhex jiri doonaan ma jiro talaabo qaad adag tii hadda aan qaadnay ku lamida ayaa wixii soo galan aan ka qaadanaa hadda oo waxa weeye matqana wanaagsan baan uga guuleysanay qalabkii iyo matqana mootooyinka inay la hadda marka waxa weeye adigu guul baan ka soo raacnay taageeraha iyo dalka iyo dadka u dhimanayna waan taageersanahay mar walba oo dhimanayna dadka iyo bulshadu si aad u garab taagnaayeen baan leeyahay. marka taageero weyn baan xagga shacabka haysanay baan leeyahay. aragtida matqana bulshada iyo matqana deegaanku aad bay u mahadsan yihiin goobta dagaalka ciidanka iyo xoog gaarka baan u ahaa al-shabaabtii matqana qorshii ay wateen nidaamkooda waan ku guuleysanay goobtii ay galeenna 4 degan jaalan ta ka maraa mataqaanay gacan bir ku qabanay meediya nolol baan u ka waxaan marka bulshada iyo deegaanka aad u maatay bulshada heeliya hoobo nala garab taagneed inaad 100% ay sii xoojiyaan oo halkan sii xoojino yaanu mataqaanay ku dhiirigelinay bulshada deegaanka Soomaalida.